Kulankan ayaa ahaa daahfurka hanaanka bixinta ruqsadaha isgaarsiinta waxaana ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iyo kuwa horey xilal u soo qabtay. Maareeyaha hay'adda isgaarsiinta qaranka Cabdi Sheekh Axmed ayaa ka warbixiyay. Annagu marka waxaan ku fikirnay adduunku meesha uu maanta marayo inaan kala qabsano haddaan sharci cusub si loo bixiyo. Marka habka ugu fiican oo sharciga loo bixiyo waxay nala tahay markaan tala badan gelinay kala tashanay shirkadaha kala tashanay mataqaanaa inta kale khusayso sharciyeenta ama sharci dejinta dalka inay ka jirto markaan kala tashanay international mataqaanaa ama hay'adaha adduunka oo telecommunication ka shaqeeya waxaan walaha haboonaatay habka maanta aan soo bandhigayno inuu ugu wanaagsan yahay in Soomaaliya lagu dhaqo oo laysanka ruqsadaha lagu bixiyo. taa waxaan kaloo aad u tixgelinay duruufaha gaarka ah oo Soomaaliya ka jira iyadana waan tixgelinay. Marka sidaad ku arki doontaan waxaan isku daynaa inaan soo koobno laysanada la bixinayo intay noqonayaan iyo shirkadana awood loo siiyo inay adeegyo badan oo dadka gaara oo dadkana u tara isgaarsiintuna maadaama ay muhiimad weyn u leedahay mataqaanaa wax walba oo maanta adduunka la sameeyo ay ku fido wadankooda oo la gaarsiiyo. Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Cabdullaahi Bile Nuur oo soo xiray kulanka ayaa waxa uu shaaciyay in nidaamkan ay dhammaan la socon doonaan shacabka. ruqsad bixintaasoo sida ay noo sheegay Maariyaha Guud Cabdi Sheekh iyo Engineer Liibaan saddex u kala baxaysa kaabayaasha infrastructure-ka isgaarsiinta iyo kuwa adeega bixiya iyo kuwa labadaba kulmiyay oo kaabayaashiina sameynaya adeegiina bixinaya saddexdaas ruqsadahooda in aynu maanta halkan ku daahfuro. waxa kaloo la sheegay raadiyoonada iyo telefishinada sidoo kale waxaa ka dhaxeeya wada shaqayn labada wasaaradood qolana laysankay bixinaysaa qolana hirarkay bixinaysaa. waad la socotaan hirarkeennu waa isdul fuulaan ma nidaamsana hay-addu waxay nidaaminaysaa hirarkii inay nidaamiso idaacadaha telefishinada meel kastoo hir lagaga shaqaynayo waxa weeye waxaa nidaaminaya hay-adda ayaa nidaaminaysa. maanta marka qodob muhiim u ah dalkeenna iyo nidaamka shaqada ee hay-adda ayaynu halkan ku daafuraynaa oo habka ruqsad bixinta nuxurkii iyo faahfaahintiina waa laga sheekeeyey. Bixinta ruqsadaha isgaarsiinta ayaa qayb ka ah sharciga isgaarsiinta oo horey loo meelmariyay. Zainab Xaadow, Somali Cable, magaalada Muqdisho.